soo weerareen al-shabaab iyo arrimo badan oo guud ahaan siyaasadda waddanka Soomaaliya meeshay maraysa iyo arrinta Jubbaland iyo doorashooyinkii arrimo ku saabsan waxaan oran karaa guud ahaan aragtida isu dhow waanu ka lahayn qodobadii aanu ka wada hadalnay waxaanu sheegnay Jubbaland inayna dhibaato gaar ah oo ay qabta ayna jirin waxa waddankan lagu dhaqi karaa ama ku hoggaansami karaan ay tahay in la ilaaliyo dastuurka waddanka u yaala taasaana ah waxa dadka kala hagi karaya ficlanna aragti isu dhow waanu ka lahayn waanu sheegnay doorashada Jubbaland inay waqtigeedii ku dhacayso amnigeeda iyo meesha ka dhacaysa mas'uuliyaddeeda ay reer Jubbaland leeyihiin odayaashii dhaqankooda ay diyaarkooda yihiin iyagoo la kulmay guddigii doorashooyinka aan filayo inuu mas'uuliyiin badanna la hadlay qaybo kale oo waftigiisa ka mid ahaana waxay ka hadleen waxyaalaha guud ahaan Soomaaliya laga qabanayo reer Jubbaland baahidooda iyo wixii horumarinta ku saabsan waan soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad Mr. Swan, welcome to Kismayo. This is your grace and I thank you very much. Members of your administration, I'm very pleased to visit Kismayo. But I have mixed emotions. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan booqasho ku imid Kismaayo waxaan la qaybsanayaa dadka reer Kismaayo iyo kuwa Jubbaland dibkii ka dhashay weerarkii argagixisadu fulisay 12 Luulyo 2019 aniga oo ku hadlaya magaca qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaan tacsi u dirayaa dhammaan reerihii iyo qoysaskii ay dadku kaga dhinteen qaraxii dhacay waxaana caafimaad degdeg ah u rajeynayaa dadka ku dhaawacmay ma jiri karto wax marmarsiyo siyaasadeed iyo mid fikir diimeed ah oo loo heli karo musiibooyinkaas oo kale qaramada midoobay waxay garab taagan tahay dadka reer Jubbaland ee la tacaalaya dhibka xanuunka badan ee ka dhashay musiibadii dhacday waxaan sidoo kale u sheegayaa dadka reer Jubbaland in falalka argagixisadu aysan dib u dhigin horumarkii ay gaareen kuna gaareen dib u heshiisiinta iyo xasiloonida siyaasadeed. My trip to Kismayo today represents my second visit to a federal member state since I arrived a few weeks safarkayga ago maanta aan ku imid Kismaayo waa midkii labaad ee aan dowlad goboleed ku tago tan iyo intii aan imid xafiiska ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo xubnaha maamulkiisa sida wanaagsan ee ay aniga iyo waqtigayga noo soo dhaweeyeen waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan si lama filaan ah ula kulmay qaar ka mid ah xildhibaanada Jubbaland u matala baarlamaanka Soomaaliya oo booqasho ku jooga guryahooda Jubbaland aniga iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam waxaan ka wada hadalnay arrimo dhowr ah oo la xiriira amniga horumarka dhaqaalaha iyo dowladnimada Jubbaland waxaan sidoo kale isweydaaranay qorshaha doorashada baarlamaanka Jubbaland iyo midda madaxweynenimada Jubbaland waxaan hoosta ka xariiqay aragtida beesha caalamka ee ku aadan doorashada Jubbaland ee ah in ay doorashadu ku dhacdo rabshad la'aan kuna dhacdo waqtigeedii una dhacdo si faragelin la'aan ah waana inay ahaataa mid xor iyo xalaal ah oo ay ku qancaan dhammaan dadku that this process must take place without violence, on time, and without interference, and that it follow a fair and transparent process broadly acceptable to all. Such a process would enhance prospects for peace, hannaanka noocan ah wuxuu Jubbaland iyo gobolkaba u horseedayaa nabad, xasilooni iyo horumar dhaqaale. The chairman of the Jubaland Independent Electoral and Boundary Commission, Dr. Hamza, waxaa sidoo kale farxad ii ah inaan la kulmay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland Dr. Hamza waxaan isagana ka wada hadalnay arrimaha doorashooyinka qaramada midoobay waxay sii wadaysaa shaqooyinkii ay ka haysay Jubbaland waxaa jira 12 hay'adood oo ay maalgeliso qaramada midoobay oo ka howlgala Jubbaland oo qabta shaqooyin kala duwan
mudane madaxweyne waxaan mar kale kaaga mahadcelinayaa sida aad aniga iyo wafdigayga noo soo dhaweyseen iyo kulankeenii wax ku oolka ahaa waxaan rajaynayaa inaan si dhow madaxda iyo shacabka reer Jubbaland kula shaqayn doono muddada aan xafiiska joogo. Mr. President, thank you again for your warm welcome to me and to my delegation and for our constructive meeting. I look forward to a close collaboration with the people and leaders of Jubaland during my tenure.